asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacana wanaagsan daawadayaal idilkiin waa meel walba joogtaan iyo sawalba ay noo daawanaysaan waxaad kusoo dhawaataa muuqaal aan kaga hadli doono wejiga hore horyaalka Soomaaliya Premier League waxyaabihii laga diiwaangeliyay maadaama 25 bishan la soo gabagabeeyay wejiga hore horyaalka Soomaaliya Premier League ololaha 2019-20 horyaalka Soomaaliya Premier League ayaa la soo gabagabeeyay wejiga hore horyaalka kala ciyaareedka 2019-20 sanadkan horyaalka waa mid ka duwan sanadihii hore maadaama ay kooxaha dhibco ahaan isku dhow yihiin taasoo ku muujinaysa in sanadkan xiisiis uu wato horyaalka Soomaaliya Premier League saddexdii sano la soo dhaafay waxa ku guuleysanaysa naadiga Dekedaha iyadoo iminka wejiga hore horyaalka Soomaaliya Premier League ku hogaaminaysa 2 dhibcood waxay leedahay 20 dhibcood haddaba sheekooyinka waaweyn ee laga diiwaangeliyay ayaan eegi doonaa kaliya 2 kooxood ayaa la kulmay guuldarooyinkii ugu badnaa horyaalka wejiga hore waxayna kala yihiin Rajo Football Club iyo Gaadiidka kuwaas oo ay la kulmeen min 6 guuldaro ay la kulmeen taasoo ka dhigan in sanadkan ku jirin bandhig cajiib ah waa qodobka koowaad 2 koox oo kaliya ayaa sanadkan la kulmay guuldarooyinkii ugu badnaa waa Gaadiidka iyo Rajo min 6 guuldaro ay la kulmeen kooxda Rajo Football Club ayaa noqotay kooxda kaliya laga dhaliyay goolasha ugu badnaa wareegga hore horyaalka Soomaaliya Premier League waxaa laga dhaliyay 12 gool ayaa shabaqadooda ku maqan oo diin ahaan naadiga Muqdisho City Club ayaa ah kooxda kaliya wejiga hore horyaalka goolasha ugu badnaa ka dhaliso iyadoo ay shabaqada gaartay tiro goolal ah 14 gool mana jirto koox ka badan kooxaha kale u diiwaan gashan xiriirka ay 10 kooxood ee horyaalka Soomaaliya Premier League kooxaha kale Dekeda Elmon Horseed ayaa la kulmay min 1 guuldaro wareegga hore horyaalka Soomaaliya Premier League waana kooxaha kaliya hal mar dhulka la dhigay waxayna sanadkan u tartamayaan ku guuleysiga horyaalka Soomaaliya Premier League tii jirto inay ku jiraan kaalmaha Dekeda koowaad ay ku jirtaa Elmon labaad ay ku jirtaa Horseedna waxay ku jirtaa booska saddexaad dhibcayar ayaana u dhaxeeyay kooxahani Gaadiidkii Rajo iyo Jazeera Sports Club ayaa loo calaamadeeyay inay yihiin kooxaha kaliya hal guul gaaray wejiga hore horyaalka Soomaaliya Premier League iyagoo dheelay 9 kulan haddii aan ku kala qaado Jazeera Sports Club hal kulan ayay adkaatay 3 kulan barbadhac 5 kulanna guuldaro ayay la kulantay Gaadiidka hal kulan ayay adkaatay 2 kulan barbadhac 6 kulan guuldaro ayay la kulantay Rajo hal kulan ayay adkaatay 2 kulan barbadhac 6 kulan oo guuldaro kuna darso waa 3 kooxood ugu hooseeya horyaalka Soomaaliya Premier League wareegga hore tan iyo sanadii 2015 ciyaaryahan Faisal Xasan Xaash ayaa sanadkan hogaaminaya tartanka goolelinta horyaalka Soomaaliya Premier League waxaana xidigan ugu dambeysay inuu ku guuleysto kabta goolelinta horyaalka Soomaaliya Premier League sanadii 2015 xilligaas oo fanaanada u xirnaa naadiga LLB Genyo kooxda kubadda cagta Elmon ayaa noqotay kooxda kaliya hal kulan ka dhalisay horyaalka Soomaaliya Premier League wareegga hore 6 gool wuxuuna ku xasuuqday naadiga Rajo ciyaar dhacday 31 bishii koowaad sanadii 2020 shan sano kadib naadiga Muqdisho City Club ayaa soo afjartay abaartii guuldar la'aanta ka haysatay naadiga Dekeda iyadoo ugu awood sheegatay 5 gool eber kulan ciyaareed dhacay 5tii bishii labaad ee ku gudajin 2020 MCC hore ayay ugu taamaysay 5 sano oo xiriir ah aysan ka adkaan naadiga Dekeda bal sanadkan 5 sano min 1 gool ayay u xisaabtay 5 gool eber ayaan ugu adkaatay dhacdooyinkan ayay ahaayeen kuwii lagu diiwaangeliyay wayna jiraan dhacdooyin kale balse intaan ayaan ku ekeenay haddaba sidee kula muuqataa sanadkan wejiga hore horyaalka Soomaaliya Premier League kuna darso wararka ugu weyn waxay kamid ah maanta in suuqa kala iibsiga horyaalka Soomaaliya Premier League imika uu furan yahay wareegga labaadna ay kooxaha wax la soo saxiix karaan ciyaartoy la soo saxiix karaan aragtida hoos inoo reeb waad maasantiin daawashada muuqaalkan